waa waqti uusan waqti kale ka dambayn, daqiiqad aan saacad la tirinayn, maalin aan qoraxda dhacayn, iyo nolol aan geeri ka dambayn. Indhaha ayaad kala qaadaysaa, waxaa markiiba sankaaga soo buuxinaya neecaw iyo udgoon aan weligeed dunida hore loogu arag. Tani ma ahan udgoon iska caadiya, ee waa carafta jannada oo laga dareemayo masaafo jirta 40 sano oo socod ah. Waa neecaw xambaarsan farxad, nabad, iyo xorriyad dhab ah oo qofka dareensiinaysa in xanuun kasta, oohin kasta, iyo dhib kasta oo soo maray ay si dhaba uga tirtirmeen. Naftii daalanayd ee adduunka ku rafaaday, tii habeenkii madowga ahaa istaagtay ee Ilaahay barisay, tii xanuunka iyo saboolnimada ku samirtay, ayaa maanta taagan goob aan ciriiri iyo cabsi midna lahayn. Markaad cagaha saarto ciidan cusub, dareenkaagu waxa uu ahaanayaa mid gebi ahaanba ka duwan wixii la yaqaanay. Ciidda ma ahan mid boor leh ama wasaq ah, ee waxay ka samaysan tahay miski saafi ah iyo sacfaraan udgoonkiisa uu nafta noolaynayo. Ciidda dabcigeeda iyo jilicsanaanteeda ayaa ah mid qofka siinaysa raaxo uusan weligiis ku riyoon. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada jannada. Intaana muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe oo na sii shargare. Ma jirto qorax qofka gubaysa, mana jiro mugdi habeenkii ah oo wax qarinaya. Nuurka meesha ka baxaya waxa uu ahaanayaa mid aan indhaha qabanayn, balse quluubta ifinaya. Wuxuuna ahaan doonaa mid ka imaanaya carshiga Raxmaanka. Waa iftiin nabadeed, iftiin farxadeed oo qof kastoo halkaas taagan wejigiisa ka dhigaya mid la mid ah dayaxa 14aadka. Dadku waxay ahaan doonaan kuwa safaf dhaadheer ku jira oo koox u socda. Waa asxaabtii, qaraabadii, iyo dadkii isku jeclaa Alle dartiis oo gacmaha is haysta. Wejiyadooda waxaa ka muuqata dhoola caddayn aan weligeed isbeddelayn. Qof kastana waxa uu xiran yahay dhar ka samaysan xariir dabiiciya oo indhaha qabanaya. Dharkan ma ahan mid duugoobaya, mana ahan mid wasaqoobaya. Midabkiisana waxa uu ka qurux badan yahay wax kastoo isha bini'aadamku ay aragtay. Luulka iyo jawharada ayaa ka dhex ifaya. Taajajka madaxa saaranna waxay leeyihiin iftiin daciifinaya iftiinka xidigaha cirka. Socodku waa mid degan, mid laabqaboojiye ah. Ma jiro qof degdegsan, waayo wakhtigu waa mid aan dhammaanayn. Quluubtana waxaa laga siibay nacaybkii, xiqdigii, masayrkii, iyo ciil kasta oo adduunka ka jiray. Waa quluub nadiif ah oo saafi ah oo iswada jecel. Sida ay u sii socdaan, waxay u dhowaanayaan yoolkoodii ugu weynaa. Markiiba indhahooda waxaa soo jiidanaya muuqaal ka weyn kana qurux badan wixii weligood ay filanayeen. Waana albaabada jannada. Albaabada jannadu ma ahan kuwa la mid ah kuwa adduunka lagu arko. Waa 8 irdood oo aad u waaweyn. Ballaarka u dhexeeya labada garab ee hal albaab oo keliya waxay la eg yihiin masaafada u dhaxaysa bariga iyo galbeedka adduunka. Haddana inkastoo intaas ay la eg yihiin, waxaa imaan doontaa maalin ay saxmad iyo ciriiri noqon doonaan tirada dadka gelaya awgeed. Albaabadani waxay ka samaysan yihiin dahab iyo qalin soofaysan, waxaana lagu xardhay luul, yaaquud, iyo jawharo indhaha qabanaya oo midabkooda u kala ifaya cagaar, casaan, iyo caddaan dhalaalaya. Inta aan la gaarin albaabada, waxaa agtooda taagan malaa'ig aan la soo koobi karin tiradooda. Waa malaa'ig wejiyadooda ay ifayaan oo dhoola caddayn iyo soo dhoweyn la taagan. Dhawaaqooda ayaana ka farxad badan muusig kasta oo adduunka laga dhegaysto. Codkoodana waa mid naxariis leh, waxayna ku qaylinayaan kelmado quluubta dejinaya. Waxayna dhahayaan salaamu calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqbad daar. Nabadgelyo dushiinna ha ahaato, samirkii aad samirteen awgiis, guryihii dambeetana kan ayaa ugu wanaagsan. Erayadan ay ku hadlayaan ee assalaamu calaykum ulama jeedaan salaan caadiya, ee waxay ka dhigan yihiin nabadgelyaha idinka gaarto xanuunka, nabadgelyaha idinka gaarto gabowga, nabadgelyaha idinka gaarto faqriga, nabadgelyaha idinka gaarto murugada, iyo nabadgelyaha idinka gaarto geerida.
halkaas wixii ka dambeeya waxaa bilaabanaysaa nolol abadi ah oo raaxo ah. naftii adduunka ku soo rafaaday ayaa markaas istaagaysaa iridka hortiis, gacmaha ayay kor u qaadaysaa iyadoo ilmada farxaddu ay indhaheeda ka daadanayso. ma ahan ilmo murugo ee waa ilmo mahadnaq. waxayna dib u xasuusanaysaa habeenkii ay keligeed u ooyeysay alla dartiis, iyadoona ka baqanaysaa cadaabta. waxayna xasuusanaysaa maalmihii gaajada, maalmihii sabirka, maalmihii cudurka. haddana dhammaan wixii la soo maray waxay la mid noqonayaan riyo laga soo toosay. dhibkii waa dhammaaday, albaabkiina waa kan indhahooda hortooda yaalla. si tartiiba oo sharaf iyo qadarin leh ayaa albaabkii weynaa ee jannada loo furayaa. guuxa uu samaynayo marka uu furmaya ayaa ah muusig farxadeed. markii albaabka uu furmo waxaa halkaas ka soo baxaya iftiin ka udgoon labalaab kii hore. indhaha dadkuna waxay si toosa u eegayaan gudaha jannada. muuqaalka koowaad ee gudaha jannada ayaa noqonaya mid qof kasta maskaxdiisa ka dhigta mid la yaab la aamusta. waxaana halkaas ka dhex muuqan doonaa webiyo biyo saafi ah oo socda, iyo dhir cagaaran oo dahab ah, iyo qasriyo dhaadheer oo gudaha ka ifaya. tallaabada ugu horraysa ee qofka mu'minka ahi uu gudaha jannada u qaado waa tallaabada kala qaybinaysa laba nololood, noloshii imtixaanka ahayd iyo noloshii abaalmarinta. marka cagta la saaro gudaha jannada waxaa durbaba bilaabanaysaa sheeko cusub, qiso cusub, iyo nolol aan weligeed dhammaanayn, daqiiqad kastana farxaddeeda sii kordhaysa. tallaabadii ugu horraysay ee qofka mu'minka ahi uu u qaado gudaha jannada waxay ahayd tallaabo ka duwan wixii abid la qaaday. ma ahayn tallaabo cagaha un la dhaqaajiyey, balse waxay ahayd tallaabo beddeshay gebi ahaanba jiritaanka qofka. markii cagaha la saaro gudaha waxaa durbaba hawada isku beddelaysaa mid xambaarsan xasillooni aan la qiyaasi karin. markii gudaha la wada galo, albaabadii waaweynaa ee ka samaysnaa qalinka iyo dahabka ayaa dib u xidhmaya. xidhmashadaasna ma ahan mid xabsi ama go'doon muujinaysa, ee waa xidhmasho micnaheedu ay tahay wixii rafaad ahaa, geeri ahaa, cudur ahaa iyo murugo ahaaba dibadda ayaa looga soo tegey, weligoodna ma soo geli doonaan. neefsashada ugu horraysa ee hawada jannada ayaa ah mid qofka siinaysa awood cusub. samabada waxaa ka buuxsamaya udgoon ka qabow kana macaan neecaw kasta oo buuraha ama badweynta laga dareemo. waa hawo nadiif ah oo cudurrada quluubta iyo kuwa jidhka intaba tirtiraysa. indhaha markii kor loo qaado si loo daawado koonkan cusub, maskaxda bini'aadamka waxay awoodi weynaysaa in hal mar ay sawirato quruxdan ishaysta ee hareeraha ka muuqata. dhulka ay ku socdaan ma ahan caro dhoobo leh, mana ahan ciid isha gubaysa, ee waa dhul goglan oo salkiisana uu yahay miski saafiya iyo sacfaraan jilicsan, kuwaas oo marka lagu soconayo sii daynaya caraf sii dhex qaadaysa lafaha iyo dhuuxa. dhaqdhaqaaq kastoo ay sameeyaan waxay ku tumanayaan dhagaxaan yaryar oon ahayn quruuru caadiya, balse ah luul, yaaquut iyo jawharo guduud iyo cagaar ah oo ifaya. iftiinka ka soo baxaya dhulka ayaa la falgalaya iftiinka ka imaanaya cirka, kaasoo abuuraya muuqaal ah in gebi ahaanba meesha ay tahay adduun ka samaysan iftiin iyo dhayman. sida ay hareerahooda u eegayaan ayaa indhahooda waxaa soo jiidanaya dhirta iyo kaymaha jannada. geedaha halkaas ku yaalla ma ahan kuwo ku baxay biyo wasaq ah, mana ahan kuwo jiriddooda ay tahay qoryo guban kara ama la goyn karo. geed kasta jiriddiisa waxay ka samaysan tahay dahab iyo qalin saafi ah. caleemaha dhirtu waa kuwo cagaar ah oo aad u dhalaalaya, waxaana laamahooda ka soo laalaadaa dhar ka samaysan xariir dabiiciya iyo dhar dhuuban oo la yidhaahdo sundus iyo istabraq. markay caleemahaasi dabaysha ku dhacdo, caleemahaasi waxay isugu dhacayaan si nidaamsan oo la yaab leh, iyagoona samaynaya dhawaaq iyo muusig dabiiciya oo ka farxad badan cod kasta oo adduunka lagu maqli jiray. geedahaasi waxaa ka mid ah geedka weyn ee loo yaqaano tuba,
waa geed baaxaddiisu ay aad u weyn tahay kaasoo haddii qof wata faras dheereeya oo hooskiisa ku dhex socon doono muddo 100 sano ah. midhaha geedaha jannada ma ahan kuwo ka fog qofka, mana ahan kuwo u baahan in geedka la koro ama la daalo si loo soo goosto. haddii uu qofka uu fadhiisto geed hoostiisa oo qalbigiisana uu jeclaado midab ama dhadhan midho gaar ah, laanta geedka ayaa iyadoo adeecaysa amarka Alle waxay si tartiiba hoos ugu soo foorarsanaysaa ilaa ay la simanto afka qofka. marka qofka uu goosto midhahaas, kuwaasoo dhadhankooda ay ka macaan yihiin malabka kana jilicsan subagga, laanta waxay dib ugu noqonaysaa meesheedii, iyadoo durbaba ay midhaha cusub ay beddeli doonaan kuwii la goostay. markii ay horay u sii socdaan iyagoo la dhacsan quruxda dhirta, ayaa waxa maqalkooda ku soo dhacaya guux hoose oo aad u deggan, waana guuxa biyo qulqulaya. markii ay eegaanna waxay arkayaan muuqaal ka baxsan garaadka dabiiciga ee aadanaha. webiyada jannada ma ahan kuwa dhex socda boholo ama godad dhulka laga qoday, ee waxay si mucjiso leh isaga dhex qulqulayaan dhulka dushiisa, iyagoo aysan jirin wax qarka u haya oo celinaya. biyahana waxay dhex socdaan miskiga iyo luulka dushooda. waxaana halkaas ka qulqulaya 4 nooc oo webi ah oo waaweyn, kuwaasoo mu'miniinta ay xaq u leeyihiin inay kaga cabaan weelal ka samaysan dahab iyo qalin. waxaana jira webi biyo ah, balse ma ahan biyo wasaqoobaya ama urkoodu isbeddelay oo dhadhankooda uu xumaanayo, ee waa biyo aad u qabow oo ka macaan kana saafi badan wixii abid la arkay. waxaana ku xiga webi caano ah, kuwaasoo dhadhankooda aan marnaba isbeddelayn, aan dhammaanayn, tayadoodana aan guurayn wakhti kasta oo la tago. waxaa kaloo jira webi malab saafi ah oo aan lahayn wax wasaq ah ama xasharaad ah oo dhex tuban, waana malab aan la arkin shinnidii samaysay, balse ah deeq toos uga timid raxmaanka. ugu dambayntii waxaa jira webi qamri ah oo ka duwan qamriga adduunka, mana ahan mid qofka sarqaaminaya, mana ahan mid qofka madax xanuun u keenaya, mana ahan mid qofka garaadkiisa beelinaya, ee waa mid aad ugu macaan dadka cabaya oo na xambaarsan farxad iyo dhadhan nafta deeqaya. sida ay dadka u daawanayaan mucjisooyinkan ayaa koox kasta waxa uu imaanaya malaa'ig soo dhoweynaysa oo garwadeen u noqonaysa si ay u geeyaan guryahooda abaalmarinta ah. qof kastana wuxuu garanayaa gurigiisa si ka wanaagsan sida uu u yaqaanay guryihii adduunka uu kaga yimid. socodka ayaana la sii wadi doonaa ilaa ay ka gaaraan xaafadihii guryaha iyo qasriyada jannada. dhismahooda ma ahan dhagaxaan caadiya, ciid ama sibir, ee waa guryo dhaadheer oo daaraha qaarkoodna ay yihiin qolol isdul saaran. qasri kastana waxa uu ka dhisan yahay hal leban oo dahab ah iyo hal leban oo qalin ah oo la isweydaariyey. dhoobada loo adeegsaday in la isugu hayo labadan leban ma ahan wax kale, ee waa miski udgoonkiisa uu bannaanka u soo baxayo. guryaha qaarkoodna waa teendhooyin laga sameeyey hal xabbo oo luul ah oo gudihiisa la qoday, kaasoo dheerarkiisa iyo balliciisuba ay cirka isku shareerayaan ilaa 60 mayl. qofka mu'minka ah ee ehelkiisa ku jira daraf ka mid a teendhadaas ma arki karaan ehelka kale ee darafka kale jooga weynida baaxadda leh awgeed, balse iftiinkeeda iyo hufnaanteeda ayaa ah mid qofka gudaha jooga uu dibadda arki karo, kii dibadda joogayna uu gudaha arki karo. marka uu qofka istaago albaabka qasriga, waxaa halkaas ku sugayaa wiilal da'yar ah oo loo abuuray inay u adeegaan ahlu jannaha. wiilashan quruxdooda dartood marka aad eegto waxaad moodaysaa inay yihiin luul la daadiyey oo meel kasta ka ifaya. dhoola caddayn, farxad iyo ixtiraam buuxa ayay ku soo dhoweynayaan qofkii lahaa qasriga. markii qasriga gudaha loo galo, indhuhu waxay qabanayaan kuraas isku safan oo laysku tiiriyey. kuraastan oo ka samaysan dahab la xardhay oo dushoodana la saaray furaasho xariir ah, waxaana loogu talagalay in qofka uga nasto daalkii adduunyada. shimbiraha jannada ayaa dusha sare ka heesaya, neecaw qabow ayaa daaqadihii jawharada ka samaysnaa ka soo gelaya, hoostoodana waxaa yaalla webiyo macaan. ehelkii, asxaabtii iyo ciddii isku jeclayd alle dartiis ayaa meesha isugu imaanaysaa
iyagoona isweydiinaya kana sheekaysanaya maalmihii adduunka ee adkaa iyo sida maanta naxariista alla ay kaga badbaadisay naartii oo ayna ugu deeqday raxmadan abidkeed ah. halkaasi kama jira daal, mana jiro hurdo loo baahan yahay, mana jira xanuun, mana jira gabow. waa yaraan abid ah, nolol abid ah, iyo farxad ilbiriqsi kasta ka sii kordhaysa tii ka horaysay. qulubtana waxay wada qiraysaa hal kelmad, taasoo ah mahad waxaa iska leh alle subxaanahu wa tacaala, allihii naga fogeeyey murugada. markay naftu salka dhigato qasriyadii waaweynaa ee laga dhisay luulka iyo dahabka, waxaa bilaabanaysaa xaqiiqo cusub oo maskaxda aadanaha aysan weligeed mala'awaal ku sawiran karin. nolosha halkaas ka bilaabanaysa ma ahan saacado isguraya, mana ahan habeen dhacaya oo madoobaanaya iyo wakhti uu gaboobayo qofku. dhammaan ehelka jannada waxaa la siinayaa muuqaal iyo dabeecad cusub. qof kasta ha ahaado kii adduunka kaga yimid isagoo waayeel ah oo cimrigiisa uu dhammaaday, ama kii carruurnimada ku geeriyooday, dhammaan waxay isku beddelayaan oo ay noqon doonaan dhallinyaro qurux badan oo awooddooduna ay taam tahay. da'dooduna waa 33 sano, waana xilligii ugu quruxda iyo xoogga badnaa noloshii bini'aadamka. dheerarkoodana wuxuu noqon doonaa mid la mida ama la siman kii aabbahood aadan, kaasoo ahaa 60 dhudhun oo cirka xaggiisa ah, waana muuqaal haybad iyo sharaf ay ka buuxdo. dabeecaddii jidhka aadanaha ee daciifka ahayd meesha waa laga siibay. qofka jannada ku jira ma seexan doono, waayo hurdadu waa geerida walaalkeed. jannada geeri kama jirto iyo maqnaasho toona. ma jiraan baahiyo jireed oo qofka daal u keenaya, mana jirto saxaro qofka uu saxaroonayo, ama kaadi qabanaysa, ama candhuuf, iyo sidoo kale dhidid wasaq ah. markay cunaan cuntada jannada ama ay cabaan cabitaankeeda, dhammaan cuntadaasi ma noqon doonta mid wasaq ah oo jidhka laga saarayo, balse waxay isku beddeli doontaa dhidid udgoonkiisa uu yahay miski saafi ah, kaasoo ka soo baxaya daroollada jidhkooda. dhididkaasina wuxuu noqon doonaa mid sii kordhinaya caraftooda iyo quruxdooda. neefsashadooda lafteed waxay noqon doontaa mid ku xidhan xuska iyo tasbiixda alleh, si la mida sidii dadka adduunka jooga ay ugu neefsadaan hawada iyagoo aan is ogayn. quruxda iyo dharka ay xidhan yihiin waa mid indhuhu aysan ka dhargayn. dadka jannada galay waxay xidhan yihiin dhar xariir ah oo aad u jilicsan, kuwaasoo isugu jira sundus oo ah xariir khafiif ah oo cagaaran, iyo istabraq oo xariir dhumuc weyn ah oo dhalaalaya. dharkan ma ahan mid warshad lagu tolay ama gacmaha aadanaha lagu sameeyey, balse waa dhar dabiiciya oo ka soo dildilaacaya laamaha geedaha jannada qaarkood. gacmahooda waxaa lagu xardhay jijimo ka samaysan dahab soofaysan, qalin iyo luul indhaha qabanaya. madaxoodana waxaa saaran taaj ay ku dhex yaalaan jawharo iftiinkooda uu ifinayo masaafo u dhexaysa bariga iyo galbeedka. mar kasta oo wakhti ay ku qaadanayaan jannada dhexdeeda, quruxdooda ma dhimanayso, mana duugoobayso, balse way sii kordhaysaa oo wejiyadooda ayaa nuur hor la yeesha. gudaha qasriyada ehelka jannada kuma ahan keligood, ee waxaa loogu diyaariyey haween loo abuuray jannada, kuwaas oo la yidhaahdo xurul cayn. waa haween aysan weligood indhaha aadanaha iyo kuwa jinkaba toona aysan arkin. quruxdooda waxay ka saraysaa sharaxaad kasta. indhahooda waa kuwo waaweyn oo madowgoodu uu aad u madow yahay, caddaankooduna uu aad u cad yahay. muuqaalkoodana wuxuu la mid yahay luul guntan oo aad loo dhowray. haddii mid ka mid a haweenka jannada ay hal mar u soo muuqdaan dadka adduunka jooga, iftiinkooda ayaa ka adkaan lahaa nuurka qoraxda iyo dayaxa. caraftoodana waxay buuxin lahayd inta u dhaxaysa cirka iyo dhulka. balse waxaa taa ka sii yaab badan oo ka sii sharaf badan haweenkii adduunka joogay ee mu'miniinta ahaa. haweenkii adduunka ka yimid ee jannada galay waxay noqon doonaan boqoradaha jannada, waxayna quruxda, nuurka iyo darajada kaga sarayn doonaan xurul caynta in ka badan inta dharka la xirto uu ka sareeyo dharka gudaha. sababtuna waxay tahay salaadoodii, soonkoodii, samirkoodii
iyo cibaadadii adduunka ay ku soo sameeyeen iyagoo dhibaataysan, taasoo abaalmarinteedu ay noqotay inay noqdaan kuwa ugu iftiinka iyo haybadda badan noloshan abadiga ah. dhinaca kale ee qasriga waxaa diyaar ku ah martiqaadi iyo shirar uusan qofka weligii ka dhergayn. kuraasta ay ku fadhiyaan waa kuwo si nidaamsan isugu wajahan, ma jiro qof dhabarka ka xiga qof kale, waayo ixtiraamka iyo jaceylka dhexdooda ayaa ah mid gaaray heerkii ugu sareeyey. markay ku fadhiistaan kuraasta waaweyn ee lagu sharxay xariirta iyo dhaymanka, waxaa hortooda socda wiilashii jannada ka shaqaynayey, kuwaasoo gacmahooda ku sida koobab ka samaysan dahab, qalin aad u dahfuran oo dhalo u eg, iyo weelal ay ku jiraan nooc kasta oo cabitaan ah. cabitaanada halkaas lagu wadaagayo waa qaar quluubta qaboojinaya, waxayna ka cabayaan ilo biyoodyo leh magacyo sharaf leh sida salsabiil iyo tasniim, kuwaasoo dhadhankoodu uu xambaarsan yahay macaan lagu daray carafta sinjibiisha iyo miskiga. waxaa intaa dheer cabitaan la yidhaahdo raxiiqul maqtuum oo ah qamri saafi ah oo sumad qabow oo miski ah lagu xidhay. marka cabitaankaas la dhuuqo, macaankiisa wuxuu raaxo ku beerayaa xididada iyo lafaha qofka. dhibicda ugu dambaysa ee koobka ku hadhana waa caraf miski ah. cunnada jannada uma baahna in la karsado, dab la shido ama la sugo. qofka mu'minka ah isagoo fadhiyey furaashkiisa oo asxaabtiisa la sheekaysanaya ayuu si lama filaana u arkayaa shimbiraha jannada oo hawada sare dhex haabaya. shimbirahaas hilibkoodana waxa uu ka macaan yahay wax kasta oo la dhadhamiyo. haddii qofka uu qalbigiisa ka jeclaado oo uu damco hilibka shimbirtaas isagoo duban, isla daqiiqadaas isagoo hal eray uusan ku dhawaaqin ayay shimbirtii iyadoo hilibkeeda uu duban yahay oo kulayl iyo udgoon macaan badan uu ka buuxo waxay ka soo muuqan doontaa hortiisa iyadoo saxan saaran. marka uu ka dhargay hilibkeeda, lafaheeda ayaa dib isugu laabanaya. shimbirtiina waxay mar kale noqonaysaa mid nool, waxayna u duulaysaa habada iyadoona ku tasbiixsanaysaa awoodda alle. sheekada iyo isdhexgalka ehelka jannada ayaa ah raaxada ugu macaan ee dhinaca quluubta. kuraastooda waa kuwo duulaya oo iswada. haddii qofka uu rabo inuu booqdo saaxiibkiis, walaalkiis ama waalidkiis oo qasri kale ku jira oo baahna inuu lugeeyo ama uu daalo, kursiga uu ku fadhiyo ayaa si sharaf leh kor ugu qaadaya, isagoona dhex qaadaya hawada udgoon ee jannada, hoosna ka daabanaya webiyada malabka iyo caanaha ee qulqulaya iyo beeraha cagaaran, ilaa uu si tartiiba ugu dego qasriga qofka uu u baahan yahay hortiis. marka ay wada fadhiistaan asxaabtii ehelkii, waxay dib u xasuusan doonaan noloshii adduunka, iyagoo wejiyadooda farxad uu la ifayo ayay isweydiin doonaan sidii adduunka ay uga baqi jireen alla subxaanahu wa tacaala. midkood ayaa odhanaya, ma xasuusataa maalintii aan wada joognay, maalintaas oo alle aan baryaynay innagoo u cabsanaynaa nafteenna iyo ehelkeenna. mid kale ayaa ugu jawaabaya isagoo dhoola caddaynaya, haa waan xasuustaa, waxaana ku dhex jirnay ehelkeenna innagoo ka baqaynaa ciqaabta iyo cadaabta, balse alla ayaa inoo naxariistay maanta oo inaga badbaadiyey cadaabtii. dood ma jirto, qaylo ma jirto, isjiijiidna ma jiro. erey kastoo afkooda ka soo baxaya waa mid xigmad, nabad iyo farxad leh. nabadgelyo iyo nabad ayaa ah codka keliya ee laga dhex maqlayo qasriyadooda. sida ay ugu jiraan raaxadaas, cunnadaas iyo kulamadaas aan kala go'a lahayn, ayay waxay ogaanayaan in weli aysan arkin wixii ugu weynaa ee jannada lagu bixinayey. waxayna si weyn u sugayaan maalin gaar ah oo la yidhaahdo yoomulmasiid, maalintii siyaadada, maalin loo ballamay suuqa jannada iyo abaalka ugu weyn ee alla subxaanahu wa tacaala uu u diyaariyey addoommadiisa. nolosha jannadu ma ahan mid taagan oo isku mid ah maalin kasta, mana ahan mid dareenka qofka uu ku caajisayo muddo kadib. ilbiriqsi kasta oo la joogo, raaxada, quruxda iyo dhadhanka nolosha ayaa isbeddelaysa oo ka sii fiicnaanaysa sidii hore. kulamadii, nasashadii iyo isla sheekaysigii ehelka iyo asxaabta ee ka dhex dhacay qasriyadii waaweynaa ee dahabka iyo luulka laga dhisay kadib, waxaa yimid wakhti gaar ah
inkastoo jannada aysan ka jirin qorax soo baxaysa ama dhacaysa, maalin iyo habeenna aysan jirin, haddana waxaa jira wakhti qiyaas ah oo u dhigma maalinta jimcaha ee adduunka la joogay. maalintaasna waxaa jannada dhexdeeda looga yaqaanaa yoomulmasiid, maalintii siyaadada ama maalintii dheeraadka. maalintan oo kale cod aad u macaan oo quluubta ruuxaya, balse deganaan iyo sharaf xambaarsan ayaa ka yeeraya dhammaan dacallada jannada. malaa'igta ayaa ugu baaqaysa ehelka jannada inay isugu soo baxaan oo ay isugu yimaadaan dooxo aad u ballaaran oo udgoon badan, taasoo loo yaqaano dooxada alfayxa. ma aha baaq qasab ah, mana ahan mid argagax leh, ee waa martiqaadkii ugu weynaa iyo kii ugu sharafta badnaa ee abid ay maqlaan. waana martiqaad toos uga imaanaya boqorka boqorrada, allihii weynaa ee abuuray quruxda ay ku dhex nool yihiin. diyaargarowga bixitaanka ayaa durbaba bilaabmaya. qof kasta oo ehelka jannada ah wuxuu u soo baxayaa dibadda qasrigiisa si uu ugu ambabaxo kulankan weyn. halkan uma baahna inay lugeeyaan ama ay daalaan, mana jiraan gawaari matooro wasaq leh, qiiqaya oo saxmad abuuraya. qof kasta waxaa albaabka qasrigiisa loogu keenayaa farda iyo gaadiid aan la qiyaasi karin quruxdooda, kuwaas oona loo yaqaano najaa'ib. fardahan baalashooda waxay ka samaysan yihiin nuur dhalaalaya. tallaabada ugu horraysa ee qaadaanna waxay gaaraysaa halka ugu dambaysa ee ishu ay qabato. gidaarada iyo kahorayaasha gaadiidkan ayaa lagu xardhay luul, yaaquut iyo dhayman ka ifaya dhexda sare ee hawada jannada. qofka marka uu dusha ka fuulana waxa uu dareemayaa xasilooni iyo haybad boqortooyo uusan weligiis adduunka ku dareemin. socodka ayaa si qurux badan oo wadajira ku bilaabmaya samada jannada ayaa waxaa dhexe haabaya kumanaan iyo malaayiin mu'miniin ah oo wejiyadooda ifaya, quluubtoodana ay ka buuxdo farxad. waxayna hawada sare ka daawan doonaan dhul ballaaran oo goglan ciid miski ah, webiyo nooc kasta ah oo si deggan isugu hoos qulqulaya, iyo kaymo caleemo dahab ah leh oo codka dabaysha ee dhex maraya uu samaynayo heese dabiiciya oo nafta noolaynaya. markii la wada gaaro dooxada alfayxa, waxaa halkaas ka furmaya suuq aad u weyn oo loo yaqaano suuqa jannada. suuqa jannada ma ahan suuqyadii adduunka ee la yaqaanay oo kale. ma jirto lacag, mid diinaar ah ama mid dirham ahba, mana jirto wax la iibinayo iyo wax la gadanayo. ma jirto qaylo, muran ama isjiijiid macamiil iyo baayac mushtar dhex maraya. kani waa suuq loogu talagalay in la isku arko, la isku barto, lana daawado quruxda dheeraadka ah ee Alle subxaanahu wa tacaala uu halkaas soo dhigay. suuqa dhexdiisa waxaa lagu soo bandhigayaa dhar nooc walba ah, kuwaasoo indhaha aysan weligood arkin, midaba aysan maskaxdu suuraysan karin, iyo muuqaalo cajiib ah. qofka marka uu dhex socdo suuqan waxa uu dooranayaa muuqaalka iyo dharka qalbigiisa uu jeclaado. isla daqiiqadaasna isagoo xiran ayuu dushiisa ku soo baxayaa si mucjiso leh. intay dhex mushaaxayeen suuqan ee ay ismarxabaynayaan, Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu amar siinayaa dabayl si gaara loogu talagalay maalintan. dabayshan waxaa loo yaqaanaa dabaysha waqooyi. marka ay dabayshani si deggan u soo dhacdo, ma wada ciid, boor ama wasaq isha soo gelaysa, ee waxay xambaarsan tahay ciid miski saafi ah. dabayshani waxay dhex qaadaysaa dadka, waxayna wejiyadooda iyo dharkooda ku buufinaysaa caraf aad u macaan iyo iftiin hor leh. markay dabayshaasi taabato dadka, quruxdooda ayaa labalaamaysaa, wejigoodana wuxuu noqonayaa mid iftiin indhaqabad la sii daynaya. markay dib ugu laabtaan qasriyadooda iyo ehelkoodii, haweenkoodii ama nimankoodii waxay ku odhanayaan, wallaahi intii aad naga maqnaydeen quruxdiinna iyo haybaddiinnu aad ayay u korratay. iyaguna waxay ugu jawaabayaan, wallaahi idinkuna quruxdiinnii waxay ka sii badatay sidii aad ahaydeen markii aan idinka tegaynay. balse dhacdada ugu weyni weli ma dhicin. suuqa kadib, dadkii oo dhammi waxay u diyaargaroobayaan fadhigii ugu weynaa ee yoomulmasiid. dooxada dhexdeeda waxaa la soo dhigayaa mimbaryo, kuwaas oo loo qaybiyey darajooyinka ehelka jannada. qaar ka mida mimbaradaasi gebi ahaanba waxay ka samaysan yihiin nuur cad oo dhalaalaya, qaar kalena waxay ka samaysan yihiin luul,
qaarna waxay ka samaysan yihiin yaaquud gaduudan, kuwa kalena zabaraj cagaaran, iyo kuwa dahab iyo qalin ka samaysan. xitaa kuwa ugu darajada hooseeya, inkastoo jannada dhexdeeda qof hooseeye uusan jirin, waxay ku fadhiisanayaan tuulmooyin laga sameeyey miski iyo kaafur. qof kastana waxa uu la dhacsan yahay booska uu fadhiyo, mana jiro qof dareemaya in qof kale laga fadilay ama meel ka hoosaysa la fadhiisiiyey, waayo quluubta waxaa laga tirtiray isbarbardhigga iyo nacaybka. markii dadkii oo dhammi ay degeen oo la wada aamusay, xasiloonni weynna ay dabooshay dooxadii oo idil, ayaa codadkii, dhawaaqii shimbiraha iyo guuxii webiyadaba la joojiyey. aamusnaan sharaf leh ayaa meeshii qabsatay. si lama filaan ah waxaa kor uga soo ifay nuur baabi'iyey dhammaan iftiinadii kale ee jannada ka jiray. waana nuur ka duwan nuurkii luulka, kii dahabka, iyo kii mimbaradaba. kadibna waxaa soo yeedhay cod toos ah oo weyn oo baaxad leh, kaasoo aan ahayn codka malaa'igta. wuxuuna yidhi, yaa ahluljannoy. codkaasina wuxuu ruxay quluubtooda, wuxuuna ku dhex abuuray nabad iyo khushuuc aad u weyn. dadkii oo dhammi ayaa iskumar u wada jawaabay, iyagoo gariiraya farxad darteed. waxayna dhaheen, waan ajiibnay rabbiyow, farxad ayaana ku ajiibnay. khayrka oo dhammina gacmahaaga ayay ku jiraan. alla subxaanahu wa tacaala ayaa ahli jannaha ku dhahaya, raalli ma tihiin oo ma idin raalligeliyey. waxay ku wada jawaabayaan cod weyn oo ilmo farxadeed ay ku jirto, waxayna dhahayaan, sidee baa raalli u noqon weynaynaa? rabbiyow, waxaad ina siisay wax aadan siin cid kale oo uunkaaga ka mid ah. waxaadna naga badbaadisay naartii holcaysay, waxaadna ina gelisay jannadaada. waadna inaga wada raalli noqotay, waana wada raalli noqonnay. markaas ayuu alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay, maanta waxaan idin siinayaa wax ka fadli badan kana qiimo weyn intaas oo dhan. dadkii ayaa la yaabay, iyagoo isweydiinaya oo yaaban, oona leh, rabbiyow, maxaa ka wanaagsan oo ka fadli badan wixii aad ina siisay? miyaadan wejiyadeenna caddayn? miyaadan miisaankeenna cuslayn? miyaadan naga fogayn naarta? daqiiqaddaas abadiga ah ee aan la qiyaasi karin ayuu allaha raxmaanka ahi waxa uu farayaa in la qaado daaha, xijaabka nuurka ah ee inaga qarinaya wejigiisa weyn. daaha ayaana si tartiiba u qaadmaya. markaas ayaa dadkii ehelka jannada ahaa, iyagoo fadhiya mimbaradooda luulka iyo nuurka ah, waxay indhahooda kor u qaadayaan si ay u eegaan wejiga raxmaanka. allihii intay adduunka joogeen ay caabudi jireen iyagoo aysan arkin. allihii habeenka madow ay u oon jireen iyagoo u hilowsan. allihii ay naftooda u dhiibeen si ay u raalligeliyaan. marka ay eegaan wejiga alla subxaanahu wa tacaala quruxdiisa iyo haybaddiisa darteed, ayaa qof kasta oo meesha fadhiya maskaxdiisa iyo qalbigiisa waxay noqonayaan kuwo istaaga oo la dhaca mucjisadaas. aragtida wejiga alle ayaa quluubtooda ula falgelaysaa si qoto dheer. farxadda ay ka qaadaan aragtida alle subxaanahu wa tacaala awgeed, waxay durbaba iloobayaan quruxdii qasliyada, macaankii webiyada malabka ahaa, dharagtii shimbiraha, iyo xitaa haweenkii iyo ubadkii ay ka imaadeen. aragtida wejiga alle ayaa noqonaysaa nimcadda ugu weyn uguna saraysa ee weligeed lagu guulaysto. qof kastana waxa uu dareemayaa in loo jeedo oo shakhsi ahaan isaga si toosa alla subxaanahu wa tacaala uu ula hadlayo, iyadoona lagu odhanayo, kani waa raalli ahaanshahaygii abadiga ahaa, weligay idinkuma caroon doono, idinkana halkan ka bixi maysaan. iftiinka iyo sharafta ka muuqata aragtidaas waxay dadkii oo dhammi ay ka dhigaysaa kuwa farxad aad u weyn, indhahoodana aysan isqaban karin weligood iftiinka iyo quruxda ay daawanayaan awgeed. tanina waxay ahayd xaqiiqdii ay u noolaayeen, waana abaalmarintii ugu dambaysay ee ka saraysa wax kasta oo la malayn karo. markii aragtida wejiga raxmaanka ay soo idlaatay, daahii nuurka ahaa ayaa si sharaf leh oo xasilooni ay ku dheehan tahay dib loogu xidhay. quluubta ehelka jannada kuma dhalan wax murugo ah ama ciil la xidhiira qarsanka daahaas. taa beddelkeeda waxay is arkayaan iyagoo gebi ahaanba isbeddelay. iftiinkii, quruxdii,
iyo nuurkii wejiga alla subxaanahu wa tacaala ayaa wejiyadooda ku reebay raad aan weligii tirmayn. nuurkaas ka ifaya wejiyadooda waxa uu ahaa mid indhaha soo jiidanaya oo quruxdoodii hore u labanlaabay in ka badan 1000 jeer. qof kastana waxa uu taagnaa isagoo u muuqda sidii dayax habeen 14aad ah, balse ka sii dhalaal badan kana sii haybad weyn. farxadda iyo macaankii ay dhuuqeen awgeed dadku waxay ku sugnaanayaan aamusnaan buuxda oo ka dhalatay yaabka iyo mucjisada noloshan abadiga ah. si tartiiba ayay dadkii u dhaqaaqayaan iyagoona dib ugu noqonaya xoolahoodii iyo gaadiidkoodii ay ku yimaadeen ee najaa'ibka. markii ay dhabarka ka fuulaan fardahaas baalasha nuurka leh ee luulka iyo jawharada lagu xardhay, safarkii dib u noqoshada ayaa bilaabmaya. dhaqaaqa baalasha fardahan waxay samaynayaan neecaw udgoon badan oo marka ay hawada jeexayaan qofka dusha ka saaran waxa uu dareemayaa nasasho buuxda. ma jirta wax saxmad ah ama waddooyin ciriiriya, waayo koonkan baaxaddiisa waa mid ka weyn wixii maskaxda bini'aadamka ay weligeed qiyaasi kartay. marka qof kasta uu soo gaaro albaabka qasrigii aadka u weynaa ee ka samaysnaa dahabka iyo qalinka, waxa uu la kulmayaa ehelkiisii, asxaabtiisii iyo haweenkiisii, kuwii xooralcaynta iyo kuwii adduunka ee ka darajada sareeyey. isla markii is-hawaystaan, qaabilaaddu waxay noqon doontaa mid ka duwan tii hore. haweenkii iyagoo dhoola caddaynaya oo la dhacsan iftiinka ka bidhaamaya wejiga ninkooda ayaa si lama filaana waxay ugu dhawaaqayaan cod jilicsan oo xushmad ay ku dheehan tahay. waxayna dhahayaan, wallaahi qurux iyo nuur aan xad lahayn ayaa idinku siyaaday intii aad naga maqnaydeen. ninkii asagoo isna fiirinaya quruxda ehelkiisa oo aad mooddo in marba marka ka dambaysa ay ka sii darayso xagga wanaagga iyo nuurka, ayaa dhahaya, wallaahi annaguna intaan idinka maqnayn quruxdiinnii way sii siyaaday. waxaana u soo fadhiisannay aragtida raxmaanka, wejigiisa ayaana iftiinka iyo haybadda inagu beertay. isbeddelkan quruxda ayaa noqday dabeecadda aasaasiga ah ee jannada. ma jirto qurux dhimanaysa ama gabow imaanaya sida adduunka marka la joogo. marka wakhtiga uu isguro, qofka uu gaboobo, midabkiisa uu isbeddelo, maqaarkiisana uu duuduubmo. jannada dhexdeeda wakhtiga wuu soconayaa, wuxuuna u shaqaynayaa si lidku ah taas. wakhti kasta oo taga qofka wuxuu u kordhinayaa dhallinyarinimo, iftiin, caafimaad iyo muuqaal ka sii qurux badan kii hore. marka dib loogu laabto furaashadii xariirta ahaa ee qasriyada dhex yaalay, noloshii raaxada ahayd ayaa halkeedii ka sii soconaysaa. waana halkan meesha ehelka jannada ay ku nastaan iyagoona fiirinaya saqafka sare ee koonkan weyn. haddii ay yihiin kuwa deggan jannatulfirdows alaclaa oo aad darajada ugu saraysa uguna dhexaysa ee jannada, aragtidooda gebi ahaanba waa mid gaar ah. saqafka hooska u ah ee guryahooda ka sareeya ma ahan cir buluug ah ama daruuro, ee waa carshiga raxmaanka. iftiinka ka soo go'aya carshigaas ayaa ah midka ifinaya jannada oo dhan. firdowsana waa xarunta ay ka soo burqadaan 4 webi ee ugu waaweyn ee jannada: webiga biyaha aan wasaqoobayn, webiga caanaha ee dhadhankooda aan isbeddelayn, webiga qamriga macaan ee aan sarqaanka lahayn, iyo webiga malabka saafiga ah leh. marka aad dhex fadhida qasrigaaga ee jannatulfirdowsa, webiyadani waxay si toosa oo nidaamsan u soo hormarayaan daarahaaga iyagoo aan u baahnayn kanaalo la qodo, balse waxay isaga dulqulqulayaan dhulka dushiisa oo ah miski udgoon. jabaqda webiyadan qulqulaya waxay samaynayaan shanqar hoose oo dejinaysa maskaxda iyo nafta. intaa waxaa dheer nasashada nafsiga ah ee jannada. adduunka dushiisa qof kasta waxa uu la noolaadaa cudurrada dabiiciga ah ee quluubta, werwer ku saabsan beri waxa dhici doona, iyo qoommo ku saabsan shalay iyo masiir lala dhasho. marka qof kale wax la siiyo iyo cabsi laga qabo in waxa aad haysata ay kaa lumaan, balse jannada dhexdeeda marka la mariyo albaabka hore, alla waxa uu quluubta ehelka jannada uu ka siibayaa cudur kasta oo xanuun keena. jannada dhexdeeda ma jiro qof ka maseeraya, qof ka darajo sareeya, xitaa haddii qofka uu arko qof kale oo boqortooyadiisa ay ka weyn tahay tiisa,
qalbigiisa wuxuu ku degan yahay raalli ahaansho buuxda isagoona aaminsan in wax uu haysta ay yihiin waxa ugu wanaagsan ee abid la abuuray.